Markii gorgorku wax weerarayo cidna ma awoodo inay ka baxsato. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa weeraradii ugu la yaabka badnaa ee gorgorka ee xayawaanada kale. Balse intaana muuqaalka bilaabin like saar si ay u ogaano dadka daneynayo muuqaalada aan soo gudbino. Halkan waxaa laga helayaa in ka badan 4 milyan oo shimbiraha badda ah. Nasiib wanaag wax dhibaato ah dhexdooda kuma sugno, laakiin gorgorka ayaa mid kormeerta ku hayo. Markii ay daqiiqado yar kadib ka soo wareegtay, gorgorku wuxuu bilaabay weerar, wuxuuna shimbirihii ku sababay inay kala cararaan. Ilbiriqsi yar kadib, uma suurtagelin inuu mid ka mid ah ugaarsado. Laakiin gorgorka sida la isla wada og yahay, waxba kama nabad galaan. Haddana wuxuu qabtay mid ka mid ah shimbiraha. Muuqaalkan sidaan ku arkayno waxaan ka garan karnaa geesinimada gorgorka. Asigoo damcay inuu ugaarsado xayawaanka dubka. Asigoo og inuu ka xajmi iyo ka culays weyn yahay uma joojin taas. Laakiin wuu ku fashilmay markii loo eego xajmigiisa, suurtagal ma aha inuu kor u qaado weynigiisa awgeed. Muuqaalkan kale waxaan arkaynaa mid ka mid ah gorgorka oo ah mid aad u xajmi weyn sidoo uu weerarayo shimbir ka mid ah shimbiraha badda, asigoo awooday inay noqoto qadadiisa maalintaas. Sidoo kale waxaan arkaynaa sidoo uu weeraray mid ka mid ah dawacada, asigoo ku sababay inay cararto. Dagaal dheer kadib, dawacada way ku fashilantay inay awood ku wajahdo gorgorka. Ugu dambeyn, wuu ka adkaaday asigoo halkaa ku ugaarsaday. Muuqaalkan kale ayaan arkaynaa ayadoo dagaal culus dhex maray gorgorka iyo maska kobraha. Ayadoo bilowga kobruhu gacan sareeyay, laakiin dagaal dheer kadib uma suurtagelin sababtoo ah gorgorka ayaa awood badnaa. Dagaalkiisa ayaa gorgorka ahaa mid istiraatiijiyeysan, ayadoona ugu dambeyntii uu awooday inuu ka adkaado. Dagaal waqti dheer qaatay kadib.